السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدل ميديا فضلا سبسكرايب قرأي هدي أتكون عصبتها channel كان سيادو يشو حكستون هالكان كسو قد برينو إثيوبيا وضل عن لهين باد تاسنا waxa ay dhacday sanadkii 1993 markii ay madax banaani ku dhawaaqday la tariyo oo markii hore kamid ahayd dhulweynaha Itoobiya. Arrintaasi waxa ay keentay in labada dal ay dagaalamaan oo dekada casab ay noqoto meel aysan dhaqdhaqaaq ku lahayn dawladda Itoobiya. Itoobiya oo shacabkeedu ka badan yahay 90 milyan oo qof u baahan inay soo degsato badeeco badan dhoofisana kheyraadkeeda sida bunka oo ay caan ku tahay ayaa 30 sano u dambeysay isticmaalaysay dekadaha dalalka ay dariska yihiin sida Djibouti iyo Suudaan. kadib markii uu hoggaanka u qabtay dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa muuqanaysa in Itoobiya ay isku dayayso inay dekadaha dalalka dariska ay la tahay ay saami ku yeelato. socdaalkii uu ku tagay magaalada Muqdisho Dr. Abiy asaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay isku afgarteen in Soomaaliya dekadaheeda loo raadiyo maalgashi wadooyin waaweyn laga dhiso kuwaas oo isku xiraya dekadaha Soomaaliya iyo dalka Itoobiya. sanadkii tagay ee 2018 waxa muran weyn ka dhashay markii dawladda Itoobiya boqolkiiba 19 laga siiyay saamiga dekada Berbera. waxayna arrintaasi timid kadib markii shirkadda DP World iyo Somaliland ay galeen heshiis ay shirkadaasi ku maamulayso dekada Berbera. dawladda federaalka ee Soomaaliya inkastoo aysan si toos ah uga hadlin saamiga Itoobiya ay ku heshay dekada Berbera ayay gebi ahaanba ka hor timid heshiiska dekada Berbera ee ka dhaxeeya DP World iyo Somaliland. baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay soo saareen xeer ay dalka kaga mamnuucayaan shirkadda DP World isla markaana waxa ay laaleen heshiiska ay la gashay Somaliland. hase yeeshee heshiiskaas weli ma uusan saxiixin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhaqan galay kadib saxiixa madaxweynaha. Itoobiya ayaa sidoo kale saami ka heshay dekada Doorale ee dalka Djibouti kadib markii ay Djibouti cayrisay DP World oo horey u maamulaysay dekadaas, halka Djibouti iyaduna ay saami ka heshay shirkadda dakhliga badan soo xareysa ee Ethiopian Airlines. sidoo kale Itoobiya ayaa isku dayaysay inay saameyn ku yeelato dekadaha dalalka Kenya iyo Suudaan oo heshiis dhanka horumarinta dekadaha ayaa waxa ay la gashay dalalkaasi Kenya iyo Suudaan. haddaba maxaa la gudboon Soomaalida haysata xeebta Afrika ugu dheer ee iyadu markaasi tuugsiga ku nool? fadlan fikirkaada hoos noogu reeb. haddii aad ka heshay videogan like saar, subscribe noqo, asxaabtaadana la wadaag oo share gare.